madaxweyne xasan waa ku mahadsantahay inaad naga aqbashay waraysigan marka hore xilli adag oo wali aad ololo doorasho ku jirto maxaa u rabtaa in mar kale madaxweyne lagu doorto Soomaaliya Falastiin aad iyo aad u mahadsantahay aniga sida aad ogtahay ba 4 sano ayaan dalkan horay aan uga soo ahaa madaxweyne xilli oo transitionka u dhamaaday oo dowlad rasmi ay bilaabanaysa ayaan soo bilaabay howlo badan ay dowladda rasmi waaye laakiin howl kastoo jirta transition ahay waxaan soo bilaabnay wax meelan soo gaarsiinay waxa ugu jirta raja'a meesha la gaarsiiyay in wax lagu sii dari karo aniguna aan ahay qofka ugu habboon ee wax ku dari kara oo khibradeeda leh waxaan xasuustaa oo ogahay 2012 markaan meesha tagnay sidii aan ahayn عاطفة emotions كي واحد يقول أنا أقول مركز أنا مثلا نك الصومالي جاي الصومالي هو أقوم بدن حارد الصومالي إنا هاي لكن ماشي مركز لا تبغى هو له سكسي معه مركز هذا وحن آدي عن رجعها عن قباء عدي عن ثلاثة دقائق صار نقول ماشي أنا قلت جي أنا واحد لا أكسي دردون وسيدور حول قال مركز كسعون حول كذا كسعون كرم أن أفر سنة مركز سوق جوكتي أن وحياة بدنا كسعون مرة maxaa isleedahay waa aad ka baratay oo 4 sano soo socda aad ku dabaqaysaa maxaas isleedahay horay waa ku soo mareen kuma celin doontid 4 sano soo socda dadka Soomaalida dhaawacyo badan oo qalbiga ah ay qabaan maaha kuwa oo daaraha duusan iyo dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca bismaan qalbiga ay dhaawacba ka qabaan xukun qaab daran ay soo arkeen kuwana waaweyn xukunkii hore oo diktatoriyada ah ayaan xasuusanaa kuwana dhalinyaradaana sanadihii la soo dhaafay qaxi iyo carabkii iyo adeeg la'aantii soo arkeen marka waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed waxa wax ugu fiican oo aan bilownay kuna guuleysan oo noo miro dhalay waxay ahayd dib u heshiisiinta iyo dhismaha hay'adaha dawladda dadku inay hay'ado dawladeed arkaan oo shaqeynayo wax weyn agtooda ka tahay marka waa bilownay waana arkeen waana ku qanacsanayeen maanta hay'adaha aan sameynay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed dugsiyada sare macaahidii kulli dadka soo baxaa jooga caafimaadka sidoo kale marka waxaan isleenahay dadka horta waxa ugu fiican si waxaan dib u heshiisiinta waa aragnimo nooga soo baxday dib u heshiisiinta bulshada iyo dib u heshiisiinta siyaasadda dib u heshiisiinta bulshada waa wax local ah oo deegaan ku saabsan laakiin midda siyaasadda waa in dastuurka lagu heshiiyaa haddii dastuurka laga heshiiyo issueska oo jira oo taagan haddii lagu heshiiyo Soomaaliya waxa la kala dib u heshiisiin siyaasadeed ka dhacday marka dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo dib u heshiisiinta bulsho iyo institutions ka qaban lahaa waxa oo hayn lahaa oo wadi lahaa inaan dhisi karnaa aaminsannahay arrimaha amniga waa caqabada ugu weyn ee dalka ka jirta meeshan wax ka yar hal maylan u jira inta meesha aan deganahay intaas amniga ugu weyn waxa wadanka laga dhisaayo waa biro dhulka yaala waa ciidanka Amazon socodka dadka oo xarniban walina qaraxyadii iyo waa ay jiraan dawladdaadii inkastoo maamul goboleedyada aad soo dhistay dhinacyada dib u dhiska lagu amaana laakiin dhinaca amniga meelaha laga dhaliilay 4 sano ka mid ahayd maxaa ka qabanaysaa Falastiin wixii dadku wax kasta waa la dhihi karaa laakiin wuxuu in ay xaqaa'iq ku salaysan yihiin la rabaa aniga dalka markaan imiday amniga meesha joogay markaan ka tagay meesha joogay waa la garanayaa report caalami ah oo security council ka soo baxay African Union ka soo baxay yaalo written qoran boqolkiiba 80 dalka inaan degmooyinka shabaab haystay inaan dib uga soo celino waxaa kale oo qof walba xusuusan karaa dhaqdhaqaaqi ka jiray 2000 iyo bilowgii 2017 markaa dalka ka tagay Jowharna waxaa lagu tagay baabuur markan waxaa lagu tagay baabuur iyo meelo ka sii fogfogba maantana afgooy iyo balcadana baabuur ku tegi kara marka amni waxaa intaas ka daran ciidamo aan dhisnayn oo aan qaabaysnayn mushaar lahayn grading system aan lahayn xiriya aan lahayn aniga aan u imiday xiriyaan abuurnay grading system aan abuurnay darajooyinka wax lagu qaato waa qalabeynay waxayna sababeen inay xoreeyaan oo xamar inta ka baxaan ay meelaha ugu fogfog ay gaaraan oo ay dhulka kala wareegaan shabaab marka dacaayadaha iyo propagandada waa halkeeda laakiin dadka Soomaaliyeed xusuustii oo joogtay ayaa wali joogta annaga amniga aniga waxaan dhihi karaa aabbaha amnigan ahay waa soo bilaab meeshaan ka soo bilaab askari iyo sarkaal isku mid ah oo $100 wada qaato oon xero lahayn ama banaanka jiifo ama guryood u jiifto askari qora garabkiisa inta gashtay xaafadiisa la aaday subaxii ka soo dhalmay ay yimaadaan u imiday waxaan shaqeynay waxaan u imiday waxaan ka tagay askari xeriyale
xariya tababar leh xariya deegaan leh mishaarkiisa uu ku salaysan yahay garaadaha uu leeyahay ku salaysan yahay isbitaal leh caafimaadkiisa dhaawaciisa meel la dhigo xoogga dalka soomaaliya ay leeyihin leh marka waxbaan ka qabanay haddana weli maaha meeshii ugu dambeysay laakiin si wada waxaa soo hartay amniga dhagxaan amniga sugi karto iyo berejidka lagu gooyo amnigu waa inay dadka amnigooda la sugaayo waa inay lahaadaan oo ay dareemaan inay amniga leeyihiin oo kooda khaldaayo ay amniga jooji dhihi karaan laakiin hadda dareenka yaal waxay tahay amniga dowladda iskale dadka shaqa kula dowladdu may qabato nin qaladkooda qarax inta maran haddii la arko inaan la soo sheego oo ama meel loo soo sheegi lahayn ama laga cabsanaayo ama aan laga hoos qaadayn ama meelaha qaarkood ama marka qaarkoodna hay-adihii dowladda qaarkood amniga laga aamin baxay oo laleeyahay haddaa u sheegto ayagaaba shabaabka la shaqeeya ku sheegay marka amnigu bira iyo dhagxaan jidka lagu gooyo maha amnigu waa qalbiga waa maskaxda waa lahaanshiyaha dadka ay lahaaneen taasaan ka shaqayn doona markaad fiiriso 4 sano joogto maxaa is leedahay waa ay qaldameen oo hadda waa sixi kartaa waxyaabaha ugu waaweyn waxaa kamid oon ka gaabinay khaladka maana sameyn laakiin horumarka aan ka sameyn karno kama sameyna sida arrimaha garsoorka yaa kamid ah oo aan rabnaa inaan aad iyo aad u qaadano waxaa kamid ah arrimaha dhaqaalaha oo economiga dib in loo dhiso inkastoo caqabada ay ku yaalaan dalkani inta oo amnigiisa iyo xaaladda amni ay sidaan tahay dhaqaalana lama dhisi karo garsoorna lama samayn karo waa isku xilayin garsoorka iyo amniga marka waxyaabahan isleeyahay waxay tahay garsoorka inaan wax ka gaabino meesha aan gaarsiin karna aanaan gaarsiinin inkastoon bilownay arrimaha dhaqaalahana inaan weliba arrimaha dhaqaalaha ee ku saabsan amniga quudka food security la yiraahdo oo Soomaaliya ay aad iyo aad ugu sahlan tahay in oo laga bixiyo challenge-kaas dhaqaalaha iyo amniga iyo wixii la xiriira dhaqaalaha dhisaa daatada waa inaad infrastructure ka dhistaa waa inaad shuruuc investment ka soo jiidayso waa inaad keentaa waxyaabo badan ku xiran laakiin dhismaha dib u dhiska dhaqaalaha madaxweyne waxaa jirta caqabada ugu weyn ee dhinaca amniga al-shabaab ay ka taagan tahay magaalooyin badan weli go'doona dekada magaalada Muqdisho waxay noo jirtay canshuur ka qaataan dadkay baad ka qaadaan garsoorkay sameeyaan meelihii dhulka lagu ka qaataan canshuur maxaa ka qabanaysaa arrimahan waxa waaye arrinta shabaab arwaataan ka hadla amniga haddaan amniga wax laga qabanin waxa kaloo dhan dib u dhiska dalka oo dhan wax weyn lagama qaban karo amniga annaga waxaan ka shaqaynaynaa horta dadka Soomaaliyeed inay amniga lahaadaan farsamooyinka amniga ku lahaa karaan waa farsamooyin gaar ah oo la yaqaano laakiin dadka inay amniga lahaadaan ciidamadana in dib loo qaabeeyo hogaankooda siyaasadda laga dhex bixiyo ciidanka banaanka la geeyo ciidamo khaas oo meelaha qaarkood khaas ku ah iyo howlaha qaarkood khaas u ah in la sameeyo intelligence-ga in la xoojiyo intelligence-geena iyo ciidamadeena waayahan dambana siyaasadda ka shaqeeyaan amni kama shaqeeyaan waa sababta uu xismay muxuu ahaa al-shabaab ay u bulaaleen marka intelligence-ga la xoojiyo ciidamada amniga oo maxaan ku raayay la dhiso dib u dhis dhab ah lagu sii sameeyo la sii tayeeyo tira waa qabaan laakiin la sii tayeeyo iyo dadka Soomaaliyeed oo wacyigooda kor loo soo qaado amniga inay ayaga leeyihiin la tusiyo waxaan isleeyahay waxba looga qaban karaa shabaab waa run meesha ay marayaan waa meel ay sii xoogeysanayaan dhaqaale markay helaan waa sii xoogeysanayaan midda arrinta garsoorka on kala hadlayna dadku markay garsoorkii ka aamin baxaan ayagaasay garsoor u doonanayaan marka waxaasoo dhan in dib tartiib reverse loogu sameeyo ayaan ka shaqaynaynaa hadii aad yiraahdo dhowrkii sano ugu dambeysay 5 sano oo dawladdaani ay jirtay siyaasi mucaaradana waa ahayd musharax madaxweynena waa ahayd weeraraa gurigaaga lagu soo qaaday culays badana adiga ku soo wajahay haddii aad xukunka timaado maxaa ka yeelaysaa mucaaradkaaga Falastiin arrimaha horta mucaaradka basically mucaaradnimadu xumaan ma aha laakiin waji xumaan loo yeelay mucaaradku waa muraayad qofka hogaamiyaha iska fiiriyo waay inta xukunka joogana mucaarad waa jira mucaarad laan ma ahayn dabjirka dacsoon inta banaan baxay ku soo sameeyaan oo soo lugayaan oo villa Soomaaliya horteed iska soo maraan ay ilaa hotel Jazeera ay imaan jireen lama hadli jirin lama joojin jirin eventskood iyo wuxuu lama haaki jirin waana aaminsanahay haddii aan rabno nidaam dimuqraadi inaan dhisno waa inaan dhageysanaa the other voice ya ra'yiga kale oo dadka ay qabaan inaan dhageysanaa kuma qasbana hogaanka markasta joogay ra'yiga qofka banaanka jooga uu sheegay inuu qaato laakiin ra'yiga banaanka laga sheegaya mar walba qof waa muwaadin waa qof xor ah waa qof aqli leh waa qof dalkan u damqanayo marka araadiis waa in la dhageystaa marka aniga ma qabo in oo mucaaradka la cadaadiyo xafiisyadooda la xiro dib lagu abuuro
horena waa usoo joogno waana soo sameyn marka inay mucaaradadu la fasaxo saaxada siyaasadda political space wax afkalaad lagu yiraahdo mar walba inay open yihiin lasii ballaariyaan qabaa waana lasii ballaarinaa insha allah. ugu dambeyntii madaxweynaha maamul goboleedyada hadda jira soo dhisana waa tahay maamul goboleedyadu inkastoo magac ahaan u jiraan laakiin hay-ad ahaanna uma jiraan dowladda dhexana xiriirkoodu mar walba ama waxaa waaye inay isku xiran yihiin oo aada isugu dhow yihiin ama inay aada u kala fog yihiin siyaasad sidee ahaad maamul goboleedyada Soomaaliya ku wajahaysaa maamul goboleedyada de horta dhaqan cusub federaalka iyo waxa iyo dhaqan siyaasadeed oo cusub oo nagu soo kordhay waay aad uma naqaan dhaqamadii iyo xukuumadii Soomaalida ee hore aan naqiinay kamid ma aha wax kastoo bilow ah ama cusubna dhibaatadoodu waa iska leeyihiin taas waa meel all laakiin qofka hogaamiyaha ah ee jamhuuriyadda madaxweynaha loo doorto asaga dalka loo doortay isagaa laga rabaa dalkan kala jooga inuu isu keeno oo dib isugu soo celiyo waxa la isugu keeni karaana waa dadka qulubtooda moogiye la isku xirxiri karo dadka la isku marwaxayn karo qasab iyo qorayn laguma waxayn karo taas anagoo ka duulayna waxaan dhisnay mashruucaad ogeed oo la dhihi jiray madasha hogaaminta qaranka National Leadership Forum shanta dowlad goboleed iyo aniga iyo gudoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka jira markaas aqal sare ma jirin anaga keenay iyo prime ministerka 8 qof wadaan ahayn si joogtaan u shiri jirin issue kastoo waa laga shiri jiray madaxweynaha ana ah go'aanka gaaray leelama hadlayo leena ag fadhiisanay waxaas anaga maanaan qabin dadkan saan ku sheegay waa dhaawacyo badan ay qabaan si dhaawacyadaas loo dhayaa dhaawacaduna qalbiga waayo maqaarka kor ma aha si loo dhayaa qof kasta ah in qabkiisa la ilaaliyo in muxtaram yahay la tuso waxa weligay aniga dowlad goboleed madaxweynaheeda intuu jidka istaago oo wuxuu sameeyaa waa qaldayn madaxweynaha uu yiri ma jirin laana waxa aan sameeynaa wuxuu ogyahay ahayeenba oo aan ka tashanay ka hadalnay inta badan administrationka routine-ka oo dowladda dhexe mid kale dhibka kale ka jira dowlad goboleedyada dowladda waxay tahay nidaamka federaalka 3 component uu ka koobmaa wax dowladda dhexe u gaar ah oo aan dowlad goboleedku shaqo ku lahayn wax dowlad goboleedka u gaar ah oo dowladda dhexe aanay aad u farageli karin iyo wax la wada leeyahay oo in laga wada shaqeeyo ay tahay waxaas marka waxa lagu habeeyaa qaanuun ama nidaam oo cilaaqaadka dowladaha layerska ama lakabyada dowladaha dhexdooda la yiraahdo intergovernmental relationship afka qalaad lagu yiraahdo ma qabno marka waa la isku dhacdhaca in la isku dhacdhaco tan Soomaaliland marka sii raacso wada hadalad waxa ugu muhiimsan waxay ahayd waxaas naga maqan daraadeeda isku dhacyada badbadan iyo keenayo laakiin taas aqli iyo odaytinimo iyo in looga gudbiyo u baahan tahay waan ku soo dhaqanay walina waa aaminsanahay inaan isku wadi karo dadka isku hay karo waa qodob midnimada Soomaaliya marka la yiraahdo mar walba dadku waxa u muuqdo Soomaaliland iyo Soomaaliya laakiin dadka Soomaaliya waxa uu sheegaa Soomaaliland marka laga tagay inta ka soo hartaa midnimo u baahan wali oo midnimadeeda meesha rabeen aan soo gaarsiisnayn inay mid yihiin oo hal ajenda siyaasadeed ay leeyihiin oo Soomaaliland isku aragtay mushkilada Soomaaliland sida loo xalin sida aan ku sheegay aragtiyooyinka dhamo jira ay ka mid tahay marka madaxweynaha jamhuuriyadda ee la doortay koow waa inuu horta waxa Soomaaliland ka soo hara dalka inuu isku hayo isku fikir ka dhigo isku hal ra'yi dawladnimo ay ku dhaqaaqaan isku dhinac u jeestaan ayagoo isku dhinac markaana in ay la xaajoodaan muxuu ahaa Soomaaliland dawladda dhexe ayaa mas'uul ka ah midnimada dalka iyo isku haynta dalka laakiin taas macnaheedu ma dadka kale oo dhan rool kuma laha ma dadka kale rool ay ku leeyihiin ajenda la ogyahay iqaab la ogyahay oo wixii lagu soo heshiiyay in la dhaxkeeyo Soomaaliland meelan soo gaarsiinay Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa dhex taagan politics kaas oo salka ku haydo boogihii qalbiga iyo aqliga iyo maskaxda ku yiilo aan sheegay kuma xalismayaan marka taasi una qabatayna lagu soo rogayaa siyaasadda sovereignty state sovereignty oo dawladda haysa ayaa lagu barashaqeynaa diplomatic masalan loo isticmaalaya dhaqaalaha iyo horumarka laga diray waxaas kuma waxa fiican waxaas oo dhan in faraha laga qaado ay socdaan dhaqaaluhu waa xor kaalmada caalamiga waa madax banaan tahay in la macaamilo waxa aniga heybada igu jirta ma ka saayo marka dal ajnabi oo dhahay dad Soomaaliyeed meel jooga ayaan buundo u dhisayaa dekadan u dhisayaa airport u dhisayaa isbitaal u dhisayaa iskool u dhisayaa sababta aan u iraado may aniga hadaan ogolaan lama sameyn karo sabab u dhaha ma garanayo waa qodob laakiin arrimaha siyaasadda iyo arrimaha sovereign relation ka la leh Soomaaliland hal waxaan kala doonaa gooni istaag iyo midnimo waxa ka soo haro dhan sabab uu kala doonaa kana ma jirto laakiin qadiyada gooni istaaga anaga ma ogolin ayaguna qadiyadii oo midnimaday diidan yihiin waa ka wada hadleynaa
waxaan jecelnahay qadiyadda midnimada inaan isku raacno laakiin goon istaaga ma ka hadli kartiin ma la dhahayo way ka hadli karaan reasonsay leeyihin asbaabay leeyihin goon istaaga keentay asbaabtaasaa u baahan in la xaliyo kabidaya midnimada soo noqonay marka qadiya waa noo muhiim waan bilaabaynaa waana ka shaqaynaynaa anagoo dhegaysanayno siyaasadna iyo dowladnimada ka hadlaynaa iyo arkaanteeda laakiin mucaawino iyo horumarinta dhaqaalaha iyo amniga daakhiliga iyo waxaas ma inaan faragelino oon ku qabqabsano diyaar unahay aad u mahadsan tahay mudane madaxweyne